قدومي waxaan ku warjinayaa documentigii inta aan shaqeynayay gobolka Banaadir inta aan joogay intuu joogay gudoomiyii hore wuxuu gaaray horumar weyn waxaan furay dhowr jid waxaan dhisnay guddi soo baara baahi kasta oo ka jirto gobolka Banaadir waxaan u wajahnay sida ay ahayd gudoomiye waxaan rabaa inaan ku wareejiyo dokumentiga oo ku salaya shaqadaada anana waxaan ballan qaadaynaa inaan kula shaqeyno inta aan wada joogno Ilaahay noo qoray salaam calaykum soo dhawaada بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مسؤولين تكالدون عاوة نقل سوى قيب قشي مناسبة دان حلا وريقي دعاه وأهر ريو قدومي كحيانك aqalka sare wadane mawlud madaxda kala duwan ee golayaasha baarlamaanada heer federaal iyo heer dowlad goboleed golayaasha heer qaran heer gobol iyo heer baarlamaan dhammaan ka soo qaybgalayaasha oo ay ka mid yihiin madaxdii iiga horreysay gobolka Banaadir intii dalka joogtay duubabka gabdhaha madaxda ciidamada iyo dhammaan mas'uuliyiinta kala gedisan ee la midka ah ee aan ka gaari waayay inaan halkan ku xuso dhammaantiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudanayaal iyo marweyn waxaan marka hore fursaddan uga faa'iidaysanayaa inaan u tacsiyeeyo dadkii ku geeriyooday weerarkii ismiidaaminta ahaa ee lala beegsaday xarunta gobolka Banaadir oo uu ugu horreeyo guddoomiyihii hore ee gobolka injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Yariiso waxaana leeyahay ilaahay ha u naxariisto dhammaanteenna sabar iyo iimaan ha naga siiyo waxaana idinka codsanayaa inaan hal daqiiqo wada istaagno faataxadana u marno in ilaahay raxmadiisa siiyo fariista walaalayaal mahadsanidin sidoo kale waxaan idinka codsanayaa in aan dhammaanteen aan Allah caafimaad uga barino walaalaheennii ku dhaawacmay falkaas foosha xun midda kale waxaan jecelahay inaan u mahad celiyo howlwadeennadii soo abaabulay munaasabadan oo uu ugu horeeyo kusimaha guddoomiyaha gobolka
iyo mas-uuliyiinta kale ee gobolka. mudanayaal iyo marweyn, waxaan sidoo kale fursaddan uga faa'iidaysanayaa inaan u mahad celiyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane xasan cali khayre oo ii gartay inaan qabto xilkan culus oo muhiimad weyn u leh dadka Soomaaliyeed iyo gaar ahaan dadweynaha ku dhaqan gobolka Banaadir. waxaana Ilaahay ka baryayaa in uu iga dhigo mid guta waajibaadka shaqo ee loo idmaday. mudanayaal iyo marweyn, sida aad ogtihiin, waxaana sugaya mas-uuliyad ballaaran oo xasaasi ah guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo gaar ahaan shacabka gobolka Banaadirba il gaara nagu eegayaan. mudanayaal iyo marweyn, waxaan hortiinna ka caddaynayaa inaan ku dadaali doono inaan horay u sii wadno shaqooyinkii wanaagsanaa ee uu waday walaalkay injineer cabdiraxmaan yariisow iyo guud ahaan howlihii ay bilaabeen maamulladii isxigxigay ee gobolka soo maray, anigoo uga mahad celinaya qof walba kaalintii uu ka soo qaatay horumarka uu gobolku gaaray. barnaamijka 6 bilood waa amniga caasimadda. amniga caasimadda قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنكم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. mudanayaal iyo marweyn, maamulka iyo dhammaan howlwadeennada gobolku waxay ahmiyad gaar ah siin doonaan inaan laamaha amniga heer gobol iyo mid dowlad dhexeba kala shaqayno sidii magaalada Muqdisho u noqon lahayd mid amnigeeda la isku halayn karo, shacabkeennuna u helaan amniga iyo nabadda ay xaqa u leeyihiin oo ah mas-uuliyadaha ugu waaweyn ee shacabku naga filayaan. waxaan aaminsanahay amniga sugiddiisu inay tahay shaqo noo wada taal shacab iyo dowladba, waxaana ku kalsoonahay haddii aan iskaashanno inaan ka adkaan doono cadowga. waa inaan dhammaanteen aanaan sugin cadowgu inuu maalin walba laayo dadkii indhaha bulshada ahaa. hase ahaatee taas beddelkeeda waa inaan qaadnaa tillaabo kasta oo aan uga hortegayno waxyeelladooda. waxaan hortiinna ka ballan qaadayaa inaan intii karaankeenna ah xoogga saari doono amnigu inuu noqdo shaqo maalmeedka ugu muhiimsan ee maamulkeenna kala shaqayn doono laamaha amniga.
waxaan si degdeg ah u furi doonaa jidadka kala xiran ee magaalada muqdisho. labaqad tasheeta labaqad tiiranyadu haa tiirante nagu tasheeta labaqad shabaabka hala tiirtiire nagu tasheeta labaqad tuhunku meel ha ku tagiye nagu tasho talabaqad. iyadoo weliba aan adkayn doono ammaanka dadweynaha iyo goobaha ganacsiga. bilicda caasimadda. rasuulkeena calayhi salaatu wassalaam wuxuu yidhi adduhuur shadra aliimaan. walaalayaal, sida aad og tihiin, nadaafadda iyo bilicda magaalo ay ummadi ku nooshahay waxay ka mid tahay qiimaha dadnimo ee ummaddaas, waxayna kaalin muhiim ah ka qaadataa caafimaadka iyo quruxda nolosha. sidaas darteed ayuu rasuulku salawaatullaahi calayhi wasallam waxa uu nadaafadda ku tilmaamay iimaanka barkiisa. sidoo kale, haddaanan nadaafadda iyo bilicda magaalada si weyn wax uga beddelin, caasimadeennu ma noqon karto mid la tartanta caasimadaha adduunka ee aan hiigsanayno in aan la mid noqonno. sidaa darteed waxaan xil gaara iska saaraynaa inaan laba laabno dadaalkii hore u socday ee lagu soo celinayay muuqaalka caasimadda, waxaana arrinkaas ku darsan doonaa qorshe maalmeedka gobolka. sidoo kale, waxaan dowladda iyo shacabka ugu baaqaynaa aniga iyo asxaabtayda intii la awoodo in qorshaha lagu daro dib u dhiska dhismayaasha burburay oo wax weyn u dhimay bilicda iyo quruxda magaalada. waxaan dayactir iyo dhismo aan ku samayn doonaa bullaacadaha qaada biyaha si loo baabi'iyo dhiiqada ka dhalata roobabka iyo nadaafad darrada u horseedi karta cudurro dilaaca. adeega dadweynaha. qaala allahu tacaala في كتابه العزيز وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إن كستو أود دقانه قبل كحددن تهي هدنا وحن درنسن هاي إن معملك قبل كمسؤولية كسارن تهي إنو ددوينها قبل كبنادر جارسيو أديجا إيو باهيها أساسية سيدا وحبرشدا caafimaadka, biyaha, korontada iyo adeegyada kale ee uu bixiyo. waxaan cid kasta oo naga caawin karta la kaashanaynaa sare u qaadidda adeega
iyo baahitirka shacabku naga sugayo. waxaan ku dadaali doonnaa inaan dhammaan degmooyinka gobolka gaarsiino heer ay bixin karaan adeegga looga baahan yahay iyo danaha joogtada ah ee gobolka uga xiran bulshada, taasoo mararka qaar ay dadku meelo fogfog uga yimaadaan. waxaana shacabka gobolka banaadir ka codsanaynaa in ay nala shaqeeyaan oo waajibka saaran gutaan si aan u gudanno mas-uuliyadda ay nooga fadhiyaan ay naga sugayaan. macna mashaariicda horumarinta. qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam in qaamat isaaca wa fii yaddi axadikum fasila fain istadaaca anlaa taquum xataa yaqrisaha falyaqrisha. walaalayaal, waxaad la socotaan in gobolka ay ka socdaan mashaariic horumarineed oo wax weyn ka beddelaya muuqaalka iyo horumarka caasimadda, sida dib u dhiska waddooyinka iyo xarumaha adeegga dadweynaha. sidaa darteed waxaan sii wadi doonnaa dhammaystirka sidaa darteed waxaan sii wadi doonnaa dhammaystirka mashaariicdii horay u socotay. waxaan abuuri doonnaa mashaariic kale oo horumarineed, annagoo gacan siin doonna soona dhoweyn doonna cid kasta oo nagala qayb qaadanaysa horumarinta iyo dib u dhiska caasimadda. waxaan magaalada muqdisho xaafadaheeda ka hergelin doonnaa waddooyin isugu jira laami iyo jaay si uu u sahlanaado isu socodka dadweynaha iyo gaadiidka. cadaaladda ama garsoorka. qaala allahu tacaala in allaha ya'muru bilcadli walixsaan wa iitaa'i di lqurbaa wayanhaa can alfaxshaa'i walmunkar walbagyi yacidukum lacallakum tadakkaruun. walaalayaal, sida aad og tihiin, dhibaatada soomaaliya in badan arrimaha loo tiiriyo inay qayb ka tahay waxaa ka mida cadaalad darrada dhexdeenna ka dhacda. cadaaladdu waa shayga keliya ee ummad u horseeda inay nabad iyo isjacayl ku wada noolaadaan. magaalada muqdisho oo ah caasimadda qaranka soomaaliyeed iyo magaalo ay ummadda soomaaliyeed ku wada nool yihiin, waxay mar kale ku soo ceshan kartaa magacii iyo maamuuskii lagu yaqaanay in qof kasta oo Soomaali ah helo cadaaladda uu xaqa u leeyahay. waxaan hortiinna caawa ka caddaynayaa intaan madax ka ahay magaaladan inaanan aqbali doonin intii awooddayda ah in cadaalad darro iyo dulmi qof Soomaali ah lagula kaco. in qof Soomaali ah oo muwaadin ah
in qof Soomaali ah oo muwaadin ah oo muslim ah uu qof kale oo Soomaali ah si bareer ah hantidiisa u haysto nuucay doonto ha ahaatee ma aqbali doono dhibaatooyinka iyo khilaafyada dhulka waxay magaalada caasimadda Muqdisho ku hayaan amni darro iyo sumcad xumo waxaan aaminsanahay haddii cadaaladda laga shaqeeyo inay yaraanayaan khilaafyada hantida la isku haysto sidaa darteed waxaan hay-adaha garsoorka ugu baaqayaa inay ku dadaalaan inay muwaadiniinta si cadaalad ah wax ugu kala xukumaan sidoo kale hay-adaha sharci fulinta waxaa laga rabaa inay kaalintooda ka qaataan hergelinta cadaaladda maamul wanaag قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه مدن يالي مروين maamulku wuxuu ku salaysnaan doonaa mabaadi'da maamul wanaaga annagoo la dagaalami doona muuqaalada kala duwan ee musuqmaasuqa waxaa kale ee maamulka gobolka Banaadir ku salaysnaan doonaa daahfurnaan la xisaabtan iyo hufnaan ختامه مسك gabagabo ugu dambeyntii waxaan halkan uga codsanayaa xukuumadda federaalka Soomaaliya dhammaan dadweynaha ku dhaqan gobolka Banaadir iyo howlwadeennada iyo shaqaalaha maamulka gobolka Banaadir in aan iska kaashano sidii aan u dardargelin lahayn howlaha na horyaal sidoo kale waxaan shacabka gobolka Banaadir iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ugu baaqayaa in laga wada qayb qaato dib u xuraynta iyo xasilinta dalka lana garab istaago dhammaan ciidamada kala duwan ee dalka oo wada dadaal ay dalka cadowga uga ciribtirayaan وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السندين والله ريال دمان كسو قيب قلياشا حفلتان حلو وريقيد وحان اقام هاد علينا يا سيدا